إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. munaasabadan oo ahayd mid si heersare loo soo agaasimay isla markaasna lagu abaalmarinayay ardadii kaalimaha hore ka galay tartanka quraanka kariimka ee ay soo qaban qaabisay hay'adda Imaam Shaatibi sanad guuradeeda lixaad ayaa waxaa lagu qabtay magaalada Bloomington ee gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka. tartankan oo socday muddo 7 ah laguna hardamayay halka jus 5 jus 10 jus 15 jus iyo 30 jus ayaa waxaa ka soo qayb galay goobta ay ka dhacaysay munaasabada macallimiintii dugsiyada waalidiin ganacsato iyo mashaayikh meel fog uga yimid munaasabadan. Cabdullaahi Bashiir ayaa ku guuleystay tartanka quraanka kariimka ee meertada lixaad ee Imaam Shaatibi iyadoo kaalinta labaadna ay gashay Ramla Qaasim. Cabdinaasir Daahir Suufi oo ah ganacsade Soomaaliyeed ayaa guuleystay koowaad ee ku guuleystay 30 jus waxa uu ugu deeqay gaari nooca raaxada ah oo qiimihiisa ku dhow yahay $40,000 iyo $10,000 iyo cumro halka Ramla Qaasimna ay kaalinta labaad gashay waxayna ku guuleystay adduun gaaraya $10,000 iyo cumro iyadoo oo Sheekh Waliid oo kamid ah culimada guddoonsiiyay. بشير عبدي نسأل الله تعالى أن يبارك له في هذه السيارة وينفعه بها. بارك الله يبارك فيه. جزاكم الله خير. الشكر الجزيل لأخينا الكريم الشيخ عبد الناصر طاهر الشيخ سعيد صوفي نسأل الله تعالى أن يبارك له في تجارته. اللهم بارك له في تجارته يا رب العالمين واخلف عليه خيرا. عبد الحكيم حسن حسين oo kamid ah culimada Soomaaliyeed ee ku nool gobolka Minnesota isla markaasna ah howlwadeennada hay'adda Imaam Shaatibi ayaa waxa uu sharaxayaa fikirka gaariga iyo sida uu ku yimid. waxaan rabaa in yar inaan wax ka sheego sida uu ku yimi baabuurkan. walaal kamid ah ganacsatada ah oo leeyahay Cabdinaasir Suufi baa waxa loogu tagay markii gabdhaha loo iimirayay siliska in gabar uu dhalay iyo gabar kale uu silis ka bixiyo. markaas wuxuu yiri quraanka Ilaahay oo la weyneenayo aniga silis way igala weyn waxa ka weyn baan rabaa inaan quraan ku bixiyo. kabacdina fikradan wuxuu keenay in uu yaraan 3 qof marka hore qorsho waxa ilaa 3 qof oo ugu quraanka ugu sareeya inay helaan baaburka aad arkaysan waxaan leeyahay qiimihiisa ilaa $40,000 ku dhawaad weey oo cash. marka arintan waxay tusaale u tahay khidmada quraanka Ilaahay subhanahu wa ta'ala inaysan u baahnayn in cid loo bariyo. ninkan cid ma weydiin ma la baxay saacid ma dhihin isaga wuxuu gartay in quraanka Ilaahay uu weyneeyo oo ganacsigiisa iyo ganacsiyada kale lagu la jiro buu gartay. innaga inteena kale rag badan xoolaha haystaa jira macallimiintu waa dadaaleen waalidku waa dadaaleen dadku xoolahooda inay ku bixistaan kulli adduunkan in yar baad wax ka haysanaysaa. marka runtii tusaale aad u fiican bay ahayd walaal Cabdinaasir Suufi iyo groupkiisa kale oo adarka shaashada ka arki doontaan ganacsiyadiisa. qaar kamid ah dadkii ka soo qayb galay oo aad u faraxsanaa ayaa waxay dareenkooda la qaybsadeen warbaahinta qaranka Soomaaliyeed oo iyadu garab taagan shacabka Soomaaliyeed meel kasto ay joogaan. marka ugu horeysa waxaan u mahad celinayaa Allah Azza wa Jalla subhanahu wa ta'ala ilaahay naga dhigay muslimiin ummadii nabi maxamedna noo doortay. mar labaadka waxaan u mahad celinayaa TV-geena qaranka insha Allah. alxamdulillah maanta waxaan noo soo gabagaboobay musaabaqadii Imaam Shaatibi lixaad ayaa noo soo gabagabowday. ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa subhanahu wa ta'ala inaan next yearna aan ka sii fiicnayn doonaa ilaahay ka rajaynaa subhanahu wa ta'ala. aad baan u faraxsanahay dhammaan maarta ka soo qayb galayaasha xafladan Imaam Shaatibi lagu soo gabagabay maanta oo wiiga soo socotay. waxaan u tahnideynayaa dhammaan intii ka soo qayb gashay way wada guuleysteen gaar ahaan intii wax ka heshay meeshan. wal maanta aad baan ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galay Imaam Shaatibi Quran competition oo sanad kasta dhaco. meeshan waxa ku tartamay caruur fara badan oo ka imaaday gobolo kala duwan. ما شاء الله عروف فربنا أيها جولي ستي ترتن كوحاك قيب جالي قبضة وحاك قيب جالي ويلل وحلوقي مدمالة فربنا يدو أكتهين مسابقين كعالم كوليجود باقرين سدا مسابقة لوقا من جري دبي أو كلاته إني باقتي سببها أيو باقتين أي هيد كورونا فيروس كا يوحي لميت كا
marka ilaahay subxaana wa tacaala fadligiisa annaga ilaahay wuxuu nagu guuleeyey in ilaahay uu inoo saqiray subxaanahu wa tacaala iyadoo cudurka uu jiro haddana in aan qabanno iyadoo la raacayo talooyinka caafimaadka sida waxaa inoo soo gabagaboobay tartankii qur-aanka dowladda lixaad ee imaam shaatibi aad ugu faraxsannahay maanta inuusan ku soo gabagaboobo waqtiga lagu jiro iyo soo u dhacay isma lahan alxamdulilah ilaahay baa fadligaas ka leh in la ogolaaday inuu dhaco sanadkan waxaa ka soo qayb galay 389 arday shanta juz iyo halka juz kaliya waxaa ku tartamaya 74 gabdhood dhinaca gabdhaha bas mid kastoo ka midana waxaa la siiyey katiina dahab oo magacooda ku qoran yihiin taas waxay ahayd arrin cusub intooda badan kullina kuwii tartanka qaaday waxay aadayaan cumra insha allah dadka ayaa waxay isweydiiyaan cabdixakiin in lacagtani xagee ka timaadaa run ahaantii lacagtani hay-ad ma bixiso NGO ma bixiyo dawlad ma bixiso waxaa lacagtan isku keena waalidiinta iyo dad ganacsato ah oo runtii doonaya in qur'aanka kariimka kor loo qaado dartiisa ayay mataqaanaa ay lacagta isugu soo aruuriyaan axmed burhaan oo 2018 ku guuleystay tartanka quraanka kariimka ee caalamiga ah ee lagu qabtay dalka Imaaraadka ayaa soo dhaweeyay guusha Cabdullaahi Bashiir iyo guuleystayaasha kale wallahi طبعا aad baa u faraxsanahay maanta maxaray saaxiibkayga iyo ardayaasha maanta aad baa u faraxsan alxamdulillah dad badan oo markaskeena tartanka qaaday alxamdulillah ilaahay tawfiiq kadib macalimiinta uma had celinaya iyo waalidiinta dhamaan iyo culimadii iyo dadka oo tiimkii ka qayb galay inay musaabaqadan musaabaqo weyn ka dhigaan khaasatan waxa shukr iyo taqdiir siinaya Sheikh Xasan Carab oo aad u dadaalay oo ka dhigay mashruuc aad u weyn ilaahay barakeeyo sheekha iyo tiimkiisa Cabdullaahi Bashiir oo ahaa ardayga ku guuleystay abaalmarinta lacagta iyo gaariga iyo waliba cimrada oo loo qaado ayaa waxa uu mahad celiyay waalidiintiisa iyo waliba macalinkiisa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما أنت وفرح سنة جوشان جاري وهو مهد علينا يا والد كذا يا معني كذا القرآن كذا صوري أرضي كتب تمي سنة كان وحى جاري صدح بقول سديتن يا سجال أرضي يضع سنة كان قبلها يويرش بكلمة في عن كينين كسكو دقالها يولبا دون كأي كوجولستين أرضي كوجولست ترتكي إمام الشاطبي أي حدنا وحاجرة إن لوك عندنا عمرض عبد الحكيم عبد إسماعيل وربعين تقرنك من صوت مريك